shil gaadhi oo sababay dhimashada hal qof ayaa maanta ka dhacay bartamaha magaalada Boorama. Qofka geeriyooday ayaa ahaa qof haweeney ah oo ku ganacsanayay meel aan wax badan ka fogeyn wadada gaadhiga. Waxaana faahfaahin dheeraad ah naga siiyay taliyaha taraafikada gobolka Awdal Axmed Daahir. Waxaana hadaladiisii ka mid ah dadka dhintay waa gabar kaliya islaamadu ilaa 60 daadeeda aan ku qiyaasayno Allah uu naxariisto waxa loo jiray xalwo barqad la dugsiga loo jiray labada qof ee dhaawaca gabadhi waa gabadh iyadna xaasley ah oo gabar weyn ah iyadna labadaba jaad meesha ku yimid laba dumari waxa la yiraahdaa iyadna qamar mudba la yiraahdaa waa dhaawac culus ninka dhaawaca waa dhaawac fudud halkan gacanta wax ka yar gaareen saasan oo jibril good iyo asna Soomaaliland wadooyinku waa cigay taw balaan cusub baana runtii anigu markaan traafik ahaan eego loo baahay waayo caalamku waxa leeyahay meel mirshabeeyo qofta mirshabeeyo baa loo jiray meel loogu tala galay inay bini'aadamku maraan iyo wadadii laamiga oo balaaran gaadiidku maraan guriyuhuna ay ka sii dambeeyaan halka dadku inay maraan loogu tala galay kullay taw balaankii hore xumaaday waxa filanaa in la hagaajin doono wixii dambe ee magaalooyinka Maxamed Bilibili Hadwanaag News magaalada Boorama.